بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan ku soo gudbinaynaa saddex qodob oo kooban oo aynu kaga hadlayno kow maxaabiistii waxa weeye xaqudirirka ahayd ee geesiyaasha ahayd ee gacanta cadowga gashay labo waxa weeye maxaa ku dhahday talo aynu maxaa ku dhahday ku socotaa guddiga 330 ah iyo garaadada saddex kacdoonkii buluuga ahaa oo in badan aynu ku baaqnay oo aynu la'nahay meeshuu ku dambeeyey iyadana waxaan weydiinaynaa garaadada iyo guddigaynu weydiinaynaa insha allah bismillaahi kariim haddii aynu ku bilowno maxaabiistii geesiyaasha ahaa maxaa ku dhahday maanta lalahaa maxkamad baa la soo taagay qaarkoodna la yidhi dil baa lagu xukumay maxaabiistaas horta waxa weeye waa geesiyaal weeye taariikhdaana qori doonta waxa ayna waxa weeye u dagaalamayeen midnimada ummadda Soomaaliyeed jiritaanka ummadda Soomaaliyeed sharafta ummadda Soomaaliyeed uma ay dagaalamayn qabiil iyo qoys marka yaan laga xumaynin waxa weeye maxaa ku dhahday halganka waa geesiyaal ay taariikhdu qori doonto insha Allah bismillaahi kariim ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ka badbaadiyo gacanta cadowga nimanka SNMna waxaynu u sheegaynaa waxa weeye sida ay ula dhaqmaan ayaa ku wada loola dhaqmayaa waxaan arkay sawirro la soo dhigay baraha bulshada oo aan xaqiijin karin inay runta ayay been tahayba haddii ay run tahay oo maxaabiistaas la laayo waxaynu u sheegaynaa waxa la laynayaa sida loo dilay waxa loo dilayaa waxa weeye maxaa ku loogu aarayaa kuwa gacanta lagu hayo waxaana gacanta loo gelin doonaa waxa weeye insha Allah bismillaahi kariim dadkii ehelkii ay ka soo jeedeen ayaa lagu abaal marin doonaa iyaga ayaana qisaasan doona insha Allah bismillaahi kariim wiilashaana waxaan leenahay haddaad dhimataanna xaq baad ku dhimateen haddaad noolaataanna insha allah bismillaahi kariim waad soo bixi doontaan nimanka ayagana waxaan leeyahay dhaqanka aynu arkaynay ee ay kula dhaqmayeen maxaabiista maaha dhaqan bini aadan maaha dhaqan islaam maaha dhaqan kiristaan maaha dhaqan yahuudeed maaha adduunka meel lagaga dhaqmaa ma ay jirto waxa weeye shuruucda caalamka waxa weeye maxaa ku dhahay xuquuqul insaanka iyo islaamku intaba way ka soo horjeedaan maxaabiista in lagu xadgudbo maxaabiista iyo dhaawaca intaba xaquuq bay leeyihiin ilaahay baana xaqaa siiyey shuruucda caalamka ayaa siisay waxa weeye markaa waxaynu caddaynaynaa nimankaasi inaanay maxaa ku dhahda islaamnimadoodu inay maxaa weeye maxaa ku dhahda waxba ka jirin waxaynu caddaynaynaa insaaniyaddooda inaanay waxba ka jirin waxaynu oran karraa nimankaasi waa munaafiqiin waayo munaafiqu muslim ma aha oo kiristan ma aha oo yuhuudi ma aha oo diin ma leh waa diin laawe waa shaydaan weeye ilaahayna subxaana wa tacaala adduunka wuxuu ugu necab yahay munaafiqiinta ayuu ugu necab yahay dhaqankoodu markaa waa dhaqan waxa weeye dhaqanka yeyda oo kale weeye xayawaanka xaggooda haddaynu u leexano waa dhaqanka yeyda iyo xayawaanka duurjoogta ah weeye maaha dhaqan bini aadan intaas waxaan leenahay markaaynu kusoo gabagabaynaynaa wiilashaas sida loola dhaqmo ayaynu ula dhaqmaynaa kuwa aynu hayno insha allah bismillaahi kariim garaadadana waxaan leenahay iyo guddiga 330 ah waa inaad waxa weeye haddii wiilashaa la dilo waxa weeye waa inaad idinkuna loo qisaasaa kuwa aad gacanta ku haysaan gacantana laga geliyaa waxa weeye dadkii eheladii waxa weeye geesiyaashaasi ay ka soo jeedeen intaa haddaan ku daayo insha allah bismillaahi kariim qodobka maxaabiista waxaan rabaa fariin inaan u diro waxa weeye guddiga 330 ah iyo garaadada waxaan leeyahay guddigay waxaan dhegaystay dhowr qof oo magaranaysaa guddigana ka mida garaadadana ka mida oo dhahaya waxa weeye waxaanu ishaynaa qabiil isaaq la yidhaahdo annagu qabiil isma hayno waxaanu ishaynaa qowlaysataan ishaynaa waxaan ishaysanaa waxa weeye horgallo kuwii kooxihii maxaa ku dhahda gumaysigu har gumaysi baynu ishaynaa waxaynu ishaynaa dad aan mabaadi' lahayn oo ma ku shaqaynaya waxa weeye maxaa ku dhahda jibiskii iyo maxaa ku dhahda maskaxdii uu kaga tegay gumaysiga ingiriisku oo aaminsan weli mabaadi'dii ingiriiska iyo heryadii gumaysiga ingiriiska aaminsan kuwa ayaanu ishaynaa kuwa inta raacsanna waa iyagay la mid yihiin inta ka soo horjeensataana waa dad Soomaaliyeed weeye marka waxaan leeyahay wiilashii sharafta badnaa ee u dhintay waxa weeye midnimada ummadda Soomaaliyeed ee calanka shanta buluuga la sitay ee waxa weeye maxaa ku dhahay iyagoo calanka sita dhafoorka laga tooganayay ee gabdhaha lahaa ee wiilasha lahaa dhiigooda ha qabiilaynina kuwa hadda dhimanaya
kuwa hadda dhaawacmaya kuwa magaranaysa hadda cisbitaalada ku jira ha qabiilaynina magaranaysa maxaa ku dhaha dhiigooda waayo waxay u baahan yihiin waxay ilaahay la hortagaan bay u baahan yihiin berito wax ka noolaanaya wuxuu ku noolaada buu doonaya qabyaaladii waxa weeye cid ay deeqayso ma laha ummaddani waxay u baahantay qabyaalad baa lagu burburiyey qabyaaladina waxa weeye inay sii burburiso oo ay tirtirto mooyaane waxba u tari mayso waxna u keeni mayso guulna ka gaari mayso sidaa darteed waxaan leeyahay waa inaad ka ilaalisaan oo ummadda mabda aad u ilaalisaan mabda'an dhallinyarada teenage-ka ahi ay garteen waxa weeye maxaa ku dhaha xil dhallaan gartay ayaa haddii ciroola garan waayo waa ceeb adduunka ah weeye waxay dhallinyaradii garatay inay calankaa ku dhintaan oo naftooda u huraan oo midnimada ummadda soomaaliyeed ilaaliyaan oo caalamka ay ku girgireen oo ummadda soomaaliyeed ay ku kasbadeen ha ka dhicisaynina oo ha ka xumaynina baan idin leeyahay waxaan idinka codsanayaa oo aan ku soo gebagabaynayaa kacdoonkii buluugga ahaa ee ay dhaleen ee ay abuureen ee ay ifiyeen ee ay bilaabeen dhallinyarada reer SSC waxa weeye kacdoonka waxaana soo gaadhaysaa in garaadadu ay ka soo horjeedaan inna waxa weeye guddiga ay ka soo horjeedaan inaanay fahamsanayn faa'iidada ku jirta cadowga soo duulay ka dhow iyo ka dheerba waxa lagu burburin karaa waxa lagu baabi'in karaa waa kacdoonka shacabka weeye kacdoonkaasi wuxuu gaadhi karaa meel aanu gaadhayn xabaddu aanay gaadhayn dhawaaq meel dheer buu ku dhacaa dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa in badan baynu nidhi waxaan rabnaa kacdoonkaasi inuu ka socdo magaalooyinka uu suurtagalka ka yahay magaalooyinka uu suurtagalka ka yahay ee buuhoodle iyo xudun iyo sarmaayo iyo taleex iyo magaranaysaa boocame iyo wirwid iyo magaranaysaa maxaa ku dhahday dharkayn iyo maxaa ku dhahda kalabaydh iyo magaranaysaa yagoori iyo magaranaysaa maxaa ku dhahday dhammaan maxaa weye magaalooyinka iyo yeyle iyo maxaa ku dhammaan meel kasta uu ka dhici kara awlboogays waa inuu ka socdaa waayo waxa rabitaan shacab dadka dhimanaya geesiyaasha dhimanaya kuwa soo gurmaday iyo kuwa magaranaysa maxaa ku dhaha gobolka u dhashayba waxay u dhimanayaan rabitaanka shacabkooda ay u dhimanayaan way loo qarinayaa rabitaanka shacabka way loo qarinayaa way loo abaabuli waaye way caalamka loogu soo bandhigi waaye arrintaasi waa arrin khatarteeda leh waxaan leeyahay garaadada iyo maxaa ku dhahday guddiga waxa weeye 330 waa xil idin saaran inaad dadka u ilaalisaan kacdoonkii ay bilaabeen waayo wuxuu la mid yahay halgankii waxa weeye maxaa ku dhahday daraawiish ee 1900 iyo maxaa ku dhahday 1900 waxa weeye maxaa ku dhahday ilaa 20kii halgankii socday ayuu la mid yahay waa maxaa ku dhahday gobonnimo doon waa Soomaali doon waa midnimo doon waa dib u maxaa ku dhahday dalkii marka waxaan leeyahay arrinta iyada ah waxa weeye duba abaabula ilaahayna subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye dagaal baa socda xuduudihiina way furan yihiin oo SNM waxa uu imanaya saadkii baa u imanaya raashinkii baa u imanaya oo ciidankii baa imanaya oo waxa weeye maxaa ku dhahday wax walba waa soconaya waa daad caqliga wax gelaya maaha caqliga wax geli kara maaha waa in la xidhaa xuduudda waa in la xidhaa meel kasta intii la xidhi karo waa in la xidhaa xuduudda 3 bilood bay maraysaa xuduuddiina way furan tahay maxaa looga jeedaa dadku waa inala yaaban yihiin waxaan idin leeyahay ha la baraarugo fadhiga ha laga kaco waxaan ku soo gabagabaynaya oon leeyahay garaadow waa qaan guddigow waa qaan shaqada aad haysaan ummaddan wixii ka xumaada ogaada idinkaa xumeeyey waayo idinka ayaa midida daabkeeda haya idinka baa maamul ah idinkaa garaadow ah idinkaa laydin dhiibay idinkaa laydinku aaminay halgankii socday ee cirkaa marayey idinka ayaa gacanta ku haya siduu noqdo mas-uuliyaddeeda idinka ayaa qaadaya waxay hagaagsanaadana waxaad ku leedihiin waad ku sharfantihiin wixii xumaadana idinka ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaya waxa weeye aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu